inkastaba deegaankeena ilaa dhaqaale badano shidaalada dhex jeefiyo khayraadkiisu aan dhammaanay sidaan ugu dhaqaaqna horumar maanta dhalisay tacabkaanu dhididna allaylehe haatan dhaqaalaha ay ka helayeen waxa weeyaan diaspora xaqiiqada in la tuso tusaale ahaan barnaamijyada ay sameeyeen ubba maxaa ka mid ah intay ciidanka qaranka sidii maxaan ku raay ay fashiliyeen wax silent cry dhalinyarada loo jiray ay fashiliyeen iyagu intay waxa weeyaan qof markaa shacaba oo iyagu ay leeyihiin dawladdu u shaqaynaya ay leeyihiin ay markay wax yeelanayaan bay duugayeen ama nin Malaysia markaa qacantooda galay ama nin ay maxaan ku raay guri kala baxeen oo markaa iyagu ay leeyihiin hadafkana uu ka soo horjeestay oo talaabo ka qaadayaan markay dubiyaan inay markay dilayaan inay dharka ciidanka Ethiopia ay gashadaan marka ay iska duubaan dadkan ay ku yiraahdaan ninkan shacabkanagii uu ahaa hadda wax ka jira ma jirin ninka ay dilayaan waa nin iyagu afduubteen ayuu ahaa waxaas oo dhan waa la fashiliyay caalamkana waa la tusay wax cad bayna noqotay haddaba barnaamijyada nooca ahaa ee diaspora ku khaldeen in si cad loo tuso kadibna maxaan ku raay waxa weeyaan iyagana laga soo jaro oo dalkii dibadiisa xiriirka dadweynaha la adkeeyo markii halganka la bilaabay nabadiidka hubeysan in wax laga qabto see wax looga qaban kara nabadiidka hoosan waxa ogsoontiin waxaa jiray dad ma taqaanaa marka maamulada dulsaarka oo la carroolayaalaha xaqana kaaga badan oo waxa weeye dhakasta u badinayay dibna u badinayay horena u badinayay dadkaas ma taqaanaa dadka qaribay dhinac kastana daacad iskaga dhigay daacadna ahayn dadkuna ay ka bixilaayeen nabadiidnimadana iyaga dhalayay beenna way sheegayeen dadka noocaasna in meesha laga saaro waxa weeyaan dad la jeclaalay meesha ay soo galaan oo xaqiiqada ma taqaanaa lagu soo dhawaado nabadiidka iyo xaaladda deegaanka ee dhankan u sii jeeda ee cakiran ee dib u socota in horay oo qablada lagu soo duwo oo waxa weey maxaan ku raasi sax ah iyo wax xaqiiqada ee dhabta ah shacabka iyagu ay suran yihiin in maxaan ku raay xaqiiqada lagu dhaqmo waxa shacabka danta oo aan la sameeyo nidaamkan khaldan ee waxa weeyaan shisheeyuu ku adeeganaya ee shacabkii deegaanka Soomaalida lagu baabi'iyay meesha laga saaro waxa markaa laga maarmaan noqotay in la helo ciidan u dhashay deegaanka Soomaalida Ethiopia ciidankaas markaa waxa weeyaan see lagu abuuray goorma la abuuray nidaamkee loo abuuray xaaladeeda oo dhameystiran waad haysan maxaa hor iman kara ciidanka hadii la horo dacaayada beenta propaganda sababtoo xilliga halganka la galay ay waxa weey maxaan ku raayay isbedelka la sameeyay dhinac baa loo badnaa marka xaqada laga hadlo waxa weeyaan ubo siday ahayd iyo xaaladda ku sugnaa wax iska cad weeyaan hatta dadka ninka ubaha waalidkiisa inuu maxaan ku raayay hatta xaraanta u keeno ayaa maxaan ku raayay cadeyn tusaalahan waxa dhacday in wadaynta istaagan ay dad ka qaataan shaar kala baxaan dhar kala baxaan kadibna aabiyu u diro aabiyu ku tukanayeen lagu qabsado ilaan dad Soomaali dharkiisa u garan in aabiyu salaam saaj ku jira dharkiisa lagu qabsado lagu yiri maxaan ku raayay wiilkaaga ay kala baxay isagoo dad taaganayay shaarka ay xidhanta waa kayni ilaa heerkaas la gaaray kursi dil dhac boob marka waxaan isagoo ay halka taagan tahay in isbedel lagu sameeyana dad yar oo marka maxaan ku rahay waxaan u wado intee leeg ba ka hormani dhibaato fara badan dacaayad been waxaan jirin marka ay suuq la gelin way iska cadeen waxa soo dhan loo bardhigo xaqaduna xaqay iman doonta hadii la yiraahdo halkankaas marka ma taqaanaa yaa la galay oo waxa weey maxaan ku rahay ciidanka lagu abuuray nidaamku soo maray maanta kama shaqeyn karno isbedelka maanta uu ku taagan yahay waad garan karaysaan laakiin dhibaatooyin fara badan maxaan ku rahay soo maray waxa lagu guuleystay oo kaliya ciidanku uu ku guuleystay waa aragti shacab uu yeeshay qorshii lagu abuuray wuxuu ahaa hal salaam balasi ciidanka liiga booliska reer degan oo waxa weeye reemiyi ah oo deegaanka u dhashay ciidanka liiga boolisku markay ku soo baxaan hadday ka naxaan oo waxa weeye reerka maxaan ku rahay markaas gobolada ay ka howlgeeyeen reerkaas
markuu halkaa ka arka ciidanka liiga booliska waa inuu ku farxaabay ujeedinaysiin waayo maxaa barbar taagnaa waxaa barbar taagnaa labadiidka oo reerku markay ka arkaan xagga saddex arrimood bay u cabsanayeen koob naftiisa laba gabdhaha saddexna hantidooda intaas soo baqanayeen marka ciidanka liiga booliska waa inay noqdaan ciidan kabaha shacabkuna ay isirahaan marka halka ka arkaan koob waxaad ka heli mataqaan adigu waad ka badbaadi hantidaadu way ka badbaadi naftaadu way ka badbaadi waxna waad ka heli oo faa'iido oo kulli wixiisa waa la cuni waana ciidankaagii waa ciidan kula dhashay waa ku ka fikraya ka markay maskaxdiisa markay ciidanka sidaa u arkaan waa in maxaan ku raayay ay maskaxdooda ku soo dhacaan ragga arrimiga marka nidaamkaas marka lagu hawlgalay in kabii shacabka ay noqdaan baa lagu hawlgalay marka laga reebo dacayadaha beenta ah ee waxa way baroogaanaha laakiin waxa la isla qaatay oo xaqaa ciidanka liiga booliska xuquuqda aadamaha caruurta iyo dumarka xuquuqdooda ilaalin waayo isla ciidanku inuu ka talaabo qaado cidii khaldanta ee shakhsiyana ciidanka jiritaankiisu iyo adaygiisu waxay ku xidhan tahay kolba dhibkiisa soo iskula xisaabtamayso oo khaladkiisa u saxo ayuu bay ku xidhan tahay maxaan ku raayay adaygiisu iyo maxaan ku raayay guushiisu waxay ku xidhan tahay ninka khaldama soo isaga qabto taas weeye tabciidanku marka hadaba uu meesha kaga saaray nabadiidkii uu haystaa sidaan ugu dhaqaaqna hormar maanta dhalisay tacabkaan u dhididna allaylehe haatan ifteeyadi hayna dhammaan deegaankeena degmiyo tuulo fafandharaara soo joog balsitiyo sii dhaaf dhaayahaga jarar iyo doolla kaalay soo arag dhawaq faraxsan qoraxay nogob ku dhaado oo imo afdheer iyo shabeelle balliibaan soo dhoof afdheer iyo shabeelle balliibaan soo dhoof dhawaq faraxsan qoraxay nogob ku dhaado oo imo afdheer iyo shabeelle balliibaan soo dhoof waxaa kaloo haddana la qaatay qorshe ah in maxaan ku raaa markii la qabto see loola dhaqmay oo kale iyaga see loola dhaqmay dagaal baa lagu qabay maxaa la sameyn waxa la dagaalamaya shakhsiga ma waa fikirka in laga siiyo qofkana waa dadkeenii oo waxa weeyaan wax kale lagu shubtay wixii lagu shubay in laga shubo oo waxa way system kale aan lagu shubo software ka lagu shubay baa laga bedeli mid kale baa lagu shubay isagoo nabadiid oo la qabtay in laga dhigo amraaj zeega ama maxaan ku raay nin hormarineed aragti shacab leh isagii la qabtay laftiisii in la bedelo oo waxa way dagaal lagu qabtay waad garan karaysaan inta qof ee waxa way inta dagaal lagu qabtay la bedelay iyagana markii dambe nabadgelyo deegaanka koob ka noqday marka hadda taasna qorshaha kale lagu guuleystay qodob kale muxuu ahaa ubo maxabad baa laga guuleysan karaa waa maya xabad ma aha xabad laga guuleysan xabada marka la ridayo waa mar ay khasab noqoto kaliya laakiin waxa ugu horeeya inayna noqonin xabad ee waxa weeye ay noqoto nabadgelyo iyo isfahan la sameeyo xabada shacabka lagu badbaadin kaliya baa la ridi bay noqonaysaa marka waxaan soo qadan karaa inta meelood ee maxaan ku raayay gobolka Doolo laga weeraray ee dhibaato lagu geystay ee lagu dilay taa marka lagu badbaadinayo kaliya noqonaysaa marka iyagii marka la qabto in loo caqli celiyo dibidajin loo sameeyo waxa ka maqan leeyahay maxaad u ordaysaa leeyahay wiilashii la khalday marka in la doodo kadibna la wada hadlo maxaa kale oo maxaan ku raayay waxa laga qaban karaa ubo kaliya maxay adeegsanaysaa ubo waxa adeegsanaysaa saboolnimada shacabkeena ubada lafteeda waxa abuuray saboolnimada haddii aan saboolnimadu jirin dee waxa weeyaan orodoo aabbaha iyo hooyada soo dil mayna yeeleen marka cadawga koowaad maxaan u aqoonsanay inay saboolnimada tahay ee uba abuuraysa ee dhibaatada abuuraysa isku dhaca qabiilka abuuraysa saboolnimada in meesha laga saaro
saboolnimada horumar inuu markaa yimaado horumarkiina waa la kala saaray biyaha lagu horeysiyey caafimaadka iyo waxbarashada iyo beeraha shaqo abuur in la abuuro xiriirka dadweynaha kor loo qaado qabyaaladda meesha laga saaro dib u curasho la sameeyo tusaale ahaan qabyaaladdu waa waxa kaliya maxaan ku rahay nabadiid ku dhuuman karo cadowguna ka faa'iideysan karo dib u curasho in la sameeyo nidaamka dib u curashada oo la daba taagan yahay oo wax kasta ma taqaanaa la garab taagan yahay in la sameeyo ayaa maxaan ku rahay noqotay waana la sameeyey waana lagu guuleystay xukuumaddu markaa haddaba ay qaadatay in xiriirka dadweynaha ay xoojiso oo mid ka mida maanta waxaan ku fadhinaa shalayna aan isku aragnay dooraadna aan isku aragnay halgankii la galay ee nidaamkaas loo galay ee duurka loo galay calan gooniyo oo ka baxsan kiiba la sameeyay ubo iyo leego iyo isku darkoodiiba isku calan laba ah isku xeerosaan iyo isku nidaam toona laba nidaam cusub oo ka gedisan kii kale hawlgal cusub oo ka gedisan urur cusub oo ururkoodii ahay magac gooniyo ay markaa iyo noqdo halgan in la galo oo duurka la galo oo laga soo guuleysto hogaaminta ilaa iyo waxa weeyaan taraabalka shakhsi waxa weeyaan askariga in duurka la galo magaalooyinkana maxaan ku raay meel la iska dhigo horta nimanka hubeysan laga soo guuleysto nidaamkii maadaama la saxay xadkana sidaa sheegay in isagana control lagu sameeyo taas marka maxay keentay isbedelkan bilowga ay keentay musuqa la dagaalamo nin jeclaysiga eexda qabyaaladda in la soo noqdo dad qorshe ku shaqeeya xaaladda deegaanka in la qiimeeyo oo dawladdu noqoto dawlad qiimeyn karta xaaladda deegaanka iyo xaaladda shacabka baahida shacabka waa maxay see loo kala horeysiinayaa baahida shacabka tusaale ahaan iminka markaan imanaya hadda wardheer oo kale waxay qorshaysan inaan imaado wardheer waa qorshahayga okay waqtigaan ku imanaya waa goorma imise cishaan haystaa intaasoo cishaan haystaa waa inaan ku xisaabtamaa see ku tegi karaa way fara badan tahay كوما ديارات بان قادن كرا وحوي محان كنا مجاري بان كتكا ما فرس بان كتكا ما لوك بان كتكا أنت واتقانا واحد لو تيجرو وحنا اللي وردير بان تيجي وردير مسك نوع بان تيجرا وان لوجي كرا لكن هذا لوجيه وقت داير بيو قادني ومايا وين اسكحدا أنا كاسي صبح حنايو أوكي ديار اسبح اسمها خرج بدن باكو بحي ما بحر ديار أوكي وحوي محان كتيجرا جاري بان كتيجرا اوكي ودooyin badan baa jira halkeen maraa maya waxa way maxaan ku raa halka inta ka baxo xagga ka soo wareego intaan ad soo baxo oo xagga ka soo wareego oo Soomaaliya soo galo Kenya soo galo wadheer xagga waan ka soo gali karaa wayna haday la wadheer inaan tago may hadana waan raa maya waa inaan wadada mara oo jararna soo mara qabridaha soo maro wadheerna soo maro intaana aan waxaan qaban karo soo qabtaa taas ma taqaana waa qorshe kale oo ku soo darsada waxa way maxaan ku raa nidaam noocaas oo qorshe ah oo waxa weeye maxaan ku raaa tan iyo tan teekar horeysiya tan horeysi sabab xagga dhaqaalaha sabab xagga waqtiga sabab xagga xiriirka dadweynaha sabab dhan kasta marka laga eego haddii laga shaqeynayo biyaha oo la qodayo meesha ku jira in la ogaada ka horeysa qalabkii lagu ogaanay in la keeno dadkii aqoonta lahaa in la keeno qalabkii lagu qodi lahaa miisaaniyadii in ka go'aansho ay noqoto oo ku garaasho la sameeyo tusaale ahaan miisaaniyadda deegaanka Soomaalida Itoobiya shalayba way taagneed way joogtay miisaaniyadda faraha badan ee wax lagu dhisayo waa mid shalayba taagneed tirir dool barwaaqo wabiyadu ay isdaafan sida loogu dhiiraday alla magani haatan qayrkeen ku dhaafay
nabadgelyada waxaa saldhig u ah horumar baa lagu soo gabagabeeyey nabaddu waxay ku xidhan tahay in shacabku ay nolol helaan bay ku xidhan tahay dawladdu inay maxaan ku raa abuurto nidaam shaqo abuur ah dawladda kaliya inayna noqonin isha kaliya dhaqaalaha leh laakiin in la helo shacab fara badan oo waxa weeye iyaguna sida dawladda dad shaqaaleeya oo hantilayaal oo lacagta dawladda tu ka badan samaysan kara in la abuuro oo deegaanka u dhashay oo Soomaaliya oo waxa weeye gobol kasta ka jira degmo kasta ka jira oo dadkaas noqdaan dad hoteelo dhista dad beero samaysta dad waxa weeyaan iskuulo sameeya ilaa jaamacad dad caafimaad health center ilaa isbitaal sameeya dad waxa weeyaan ganacsi sameeya dad waxa weeyaan yaani wax soo saarka iyo khayraadka dabiiciga ka faa'iideysta intaas oo dhan dad ku hawlan in la sameeyo isla markaana lagu xisaabtamo kaliya imise qof baad shaqaaleysay maxaad umada ugu filan tahay intaas kaliya dawladuna ay policy ku taageerto iyo nidaam u saamaxaya wax qaladkooda kaliya ayna noqon dawladdu isha kaliya ee maxaan ku rahaye dakhliga leh ay dawladdu dad ka lacag badan la helo oo waxa way maxaan ku rahaa project yadisa oo sameeya atii diaspora ee nabadiidka la siinayay in horumarka la geliyo oo waxa way leeyahay war shalay wada khaldan baad bareysayna maanta halka soo mariya Believe so doof after you shabelle believe so